waagaan muslimka ahaa runtii waxaan ahaa qof murugada, walwalka, shallaytada iyo cabsida aysan ka dhammaanin. Waxaan ahaa wiil ka walwala waxa xigi doona nolosha xigta. Waxaan ahaa qof nacib dadka ka fikirka duwan, hadday tahay diin, mabda' iyo ka bulsho ahaan. Waxaan aaminsanaa in dumarku yihiin shaqaalaha ragga oo ay tahay inay ragga u noolaadaan. Laakiin waxaas oo dhan way isbedeleen markii aan Ciise Masiix rumeeyey. Markii aan rumeeyey kitaabkii Towraadka, Zabuurka iyo Injiilka, murugadii, walwalkii, shallaytadii, cabsidii iyo nacaybkii waxaa laygu bedelay nabad, xasilooni, rajo iyo jacayl. Waxaa kaloo iga baxay aaminaadii ahayd in dumarku ay u nool yihiin qancinta ninka oo keliya. Sidoo kale waxaa iga baxay sheekadii ahayd guursiga dumar badan. Aniga isma bedelin, laakiin waxaa i bedelay kitaabka Injiilka. Waan hubaa in adigana uu ku bedeli doono oo uu kaa dhigi doono qof jacayl ka buuxa, nacayb aan lahayn, farxadna ku nool. Rumayso Ciise Masiix. Kitaabka Quduuska wuxuu leeyahay, haddaad afka ka qiratid in Ciise yahay Rabbiga oo aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa. Haddii aad rumaysatay Injiilka, waan hubaa inaa isbedeli doonto sida aan aniga isku bedelay. Rumayso Ciise Masiix, waa badbaadi doontaa.